gudoomiyaha degmada Dinsor Ibrahim Maxamed Nuur Shigshiwo ayaa ka qayb galay aas loo sameeyay Allah u naxariisto Sheekh Nuurani Shaafi oo kamid ah culimo u diinki ugu caansanaa degmada Dinsor. Sheekha ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho abaara markay saacadu ay 7:40 daqiiqo ay soo caga dhigtay diyaarad sidee meedka Sheekha Suldaan Xaaji Maxamed Nuur International Airport. Garoonka waxaa soo buux dhaafiyay shacabka reer Dinsor, ehelka Sheekha iyo maamulka degmada Dinsor oo hormuud ku yahay gudoomiyaha degmada Dinsor Ibrahim Maxamed Nuur Shigshiwo. Meedka Sheekha oo loo soo galbiyay magaalada halkaas in lagu tugtay salaada janaasada kadibna lagu aasay qabuuraha agaarka garoonka kubadda cagta Xaaji Amadi. Waa kuwan qaar kamid ah ehelada Sheekha oo la hadlay TV-ga Koonfur Galbeed. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Ana magacayga Abdiraxmaan Maxamed Shaafi. adeerka geeriyoodi xamar diyaar laha ka qaadi sheeqatay weyn degmada kamid tahay waxa la ka aasay degmada Dinsor. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'd salaam Sheekh Nuurani Shaafi Maxamed marxuumka Allah u naxariisto. marxuumku wuxuu abtigeyga wuxuu ka tagay caruur badan aad u tir badan ilaa 24 caruur ah wuxuuna xaasaskiisa ku koobnaayeen ilaa 3 hase ahaatee taariikhdiisa wuxuu ahaa nin culimo u diin ah oo beeraley ah haddana alxamdulilaahi rabbil caalamiin wuxuu ahaa nin abtigey ah hooyada iyo iska aabba ahaayeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan ilaahay u mahadiisa u celinayaa maamulka degmada iyo macal shacabka oo dhan maanta si sheekha زايد الله عاصي يدا الله كلا هرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhanka kale gudoomiyaha degmada Dinsor Ibrahim Maxamed Nuur Shigshiwo ayaa ku dheeraada taariikhda Sheekha. maanta waxa geeriyooday nin oo reer Dinsor ahaay oo sheekh oo culumadii magaalada ugu weyn oo kamid ahay oo la yiraahdo Sheekh Nuurani Shaafi ayaa geeriyooday Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay qabriisa u waasiyo waxa ku geeriyooday shalay ay xalay saacad dhax ayaa waxa ku geeriyooday magaalada caasimadda Muqdisho marka maanta la keenay hadda soo joognay Ilaahay ha u naxariisto Sheekh Nuurani wuxuu ahaa culumada magaalada ugu weyn oo ugu faadheer daahan oo jiray 75 sano ay jiray ilmo badan ay dhalay 23 xanug ay dhalay marka Ilaahay ha u naxariisto maanta waxa naga geeriyooday nin oo culus oo culumadeena ah ayaa naga geeriyooday nin taariikh oo ahay dadka oo magaaladan ugu caansan ayuu ahaay oo culumada ah oo dadka ugu faaweyn ayuu ahaay marka Ilaahay ha u naxariisto hadda maanta diyaarad ayaa lagu soo qaaday midkiis waa la keenay waana soo duugnay Ilaahay ha u naxariisto intii ka dhimatiin Ilaahay sabar jibriil ayaa hasiyo annaga dhamaanteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala gaar ahaan qoyska iyo qaraabadii oo ka geeriyooday iyo wax dhaaf Ilaahay wax barkada Ilaahay ka dhiga Ilaahay sabar ha ku siiyo maxaa yeelay nin oo la suusanay ayuu ahay dadka oo nabad jecel ayuu ahay oo aad nabad u jecel oo Dinsor dadka sheegay dadka oo ugu weyn oo ahay oo taariikh ahaan culumada ugu maqalay ayuu ku jiray asaga iyo nin yiraahdo Ashamudur dadka ugu fiican ay ahaayeen Dinsor qaale Ashamudur wuxuu ahay qaali magaalada laakiin asaga dadka oo diinta fidinay oo afka gaaban oo dibaac oo fiican ayuu ahay marka Ilaahay ha u naxariisto culumada oo ugu fiican ahay oo asaga ka dhintay intii oo qoyskaas ilmihiis iyo intii oo joogtay sabar jibriil Ilaahay ka siiyo aadan Cabdi Nuur raadiyo TV-ga Koonfur Galbeed degmada Dinsor.